xilli dhowaan tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaal beeleedyo ka dhacay dab lagu qabadsiiyay tuulooyinka kala ah Jameeca Masire, Maqdis, Kulmis iyo Busle ayaa maanta waxa gaaray tuulooyinkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, wasiir ka tirsan Hirshabeelle, xildhibaano maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Balcad waxaana tuulooyinka la gubay ka muuqanayay burbur aad u baahsan oo guud ahaan ka muuqanaya tuulooyinkaasi iyadoo guud ahaan ay basbeeneen guryihii ku yiilay tuulada Jameeca Masire oo ka mid ah tuulooyinka la gubay. qaar ka mid ah waxgaradka tuulooyinkaasi ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhibaatada ka dhacday tuulooyinkaasi. haddana maanta ayagoo wada jir ah ay noogu yimideen masiibada ku dhacday dadkan si ay aga baaraan degaan ay ugu laxawsadaan oo ay ula qaybsadaan xanuunka oo ay wixii karaankooda ay u gali karaan u galaan. gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Cismaan Maxamed Xaadoole iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dhankooda sheegay in qoysas fara badan ay waayeen guryahoodii ayna wadaan dadaalo dadkani wax loogu qabanayo. mudana madaxweyne ku-xigeen, mudana wasiir, mudana gobernatore muddo laga joogo 20 casho ka hor meeshaan ayaan imaaday. dadkii dhibaatadan maanta indhihiina haysato tuuladan ugu yaraan waxaa dhibaato ku soo gaartay dad aan ku qiyaasay 3,000 oo qoys gurigooda dhammaay iyo hantida ay lahaayeen halkan ku waayay. hoy ma haystaan, duruuf adag ayaa jirta. waxaan idinka rabaa amba dowladda Hirshabeelle, dowladdiina Hirshabeelle iyo dowlad federaal iyo caalamka cidda la kaashiisiin in la kaashade gurmad degdeg inaad siisiin. in badan lagu soo noqdo waxa keenaya in wax qabad la helo sidii wax loo qaban lahaayna maartay 24 saac maalin kasta waxa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahaay deegaanada dhibaatada gaartay dadkoodina ay ugu soo naqal lahaayeen si nabad ay u soo degi lahaayeen una soo naqal lahaayeen. waxaan wada dhibaayo dadka duurka joogo, dadka dhibaatada xilligan soo ku jiro, dadka dhibka gaaray wayna wada dhibaan waa la qaybsaynaa xanuunka ayaa la qaybsaynaa. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in gogol nabadeed ay u fidinayaan beelahani walaalaha ah ee dagaalamay. waxaan sugaynaa waqti dhowaad ilaahay ka raali noqdo in ay noo suura gasho in aan fidino marka ugu horeysa boorta gogoshi nabadda si wixii dhacay looga heshiiyo. markii wixii dhacay laga heshiiyay ka bacdina aan u soo jeesano bal sidii dhismihii iyo maaragtay ummadan si dib loogu deji lahay loo howlgalo. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in dib u dejinta dadkani guryahoodii la gubay ay kala qayb qaadato maadaama dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku filneen. bacda salaam aad ayaan ma aragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaalaa ay ku diradeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen. tuuladii ma aragtay waxaan dhex taaganahay Jameeca Masire, Maqdis asigana sidoo kale la gubay, Kulmis lamida, Busle asigana wax qayb laga gubay. xaqiiqdii iyo deegaano kale intooda dhibaatadu ay saameysay guud ahaan beesha caalamka ee dowladda dhaxna waan ka rajaynaynaa inay dhibaatadan garab nagula siiyo. dhibaato state-ku ku filaya ma ahan, laakiin anaguna gacana iskor saaramayne waxa la waxaan qaban doonaa haddii ay raali ka noqdo. aad u mahadsantihiin. sidoo kale wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa xilalkii looga qaaday gudoomiyaasha degmooyinka Mahaday iyo Cadale waxaana degmooyinkaasi loo magacaabay gudoomiyaal cusub. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, tuulada Jameeca Masire, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.